wasiirku 24 hours wuxuu ku jiraa media waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu isleeyahay isma laha runtii taa waxaan dareemi karaa nin dhalinyaro way inaan la taliye lahayn cid allaale cid lid ku ah oo dib u dhigaysa oo garanaysa ama baan u horseedaysa ama mugdi ku ridaysa inaan cod dheerna u sheegno cod gaabanna u sheegno dalkan cid awood ku haysan karta ma jirto dhammaan waan salaamayaa madasha inta fadhida maamul goboleedada gudoomiyaashooda qaybta ka joogta bahda saxaafadana aad baan u salaamayaa muhiimadda ugu weyn oo aan rabnaa inaan ka hadalno afkaartayda ka dhiimanna waxa weeye maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay doorashooyinkii isdaba joogay oo magaranaysa hakadka ku yimi waxaan rabaa marka koowaad inaan xuso waxaa la soo saaray jadwalkii isku aadka 17 jirada Soomaaliyana caawa ay jadwalka qayb ka ahayd gruubyada ay gashay dhalinyarada soo dadaashay oo koobka soo qaaday waxaan leeyahay hore u socda carqaladaha jira daraadood waxaan aad uga fikiraynay in dhalinyaradaas dadaashay iyo ciddii markaa garab taagnayd in dib loo celiyo muhiimadda ugu weyn aan ka hadlaynaa waa taa cidda dib u celinsana waa iska caddahay haddaan nahay annaga bahda sportska ama dowlad goboleedada waxaan garab iyo gaashaan u nahay dhalinyarada guulaha soo gaaray inay hore u socdaan cid allaale ciddii lid ku ah oo dib u dhigaysa oo garanaysa ama baan u horseedaysa ama mugdi ku ridaysa inaan cod dheerna u sheegno cod gaabanna u sheegno dalkan cid awood ku haysan karta ma jirto wasiirka dhalinyarada sportska ee Soomaaliya runtii markii la magacaabay nin dhalinyaro ah buu ahaa annagu waxaanu ahayn dhalinyarada aadka dadka ugu qareemi jiray markii aanu aragnay afkaartiisa iyo ficiladiisa qalafsan runtii dhalinyaronimadii iyo wixii aan u doodi jirnay waxa moodaa in ay noqonayso inaan dib dambe dhalinyaro wax loogu aaminin waayo kaas oo kale marka la arko shakhsi wasiira oo runtii awoodii shaati dawladeed u adeegsanaya xeerarka kubadda cagta oo aanu shaqal ku lahayn dal dhan baan gelinaya runtii Soomaalina u jeeda cid kasta oo magaranaysa mansabkan u dhiibtay ay ugu sareeyaan madaxda u sareysana fariin dheer waxaan leenahay dalkan wuu ka soo gudbay xilligii magaranaysa qof qabqable ama qof dictator meel loo dhiibi lahaa dalkan waa dal federaal dalkan wax wadar ogol iyo wax Soomaali dhalinyaradu ogoshahay baa muhiim in lagu maamulo wixii inta ka baxsan annagana waxaan leenahay cidda la xukumaya waa dhalinyaro wasiirku cidda uu xukumaya waa dhalinyaro wasiirka isaga waxa laga rabay inuu ajanda la yimaado wasaaradda dalkan wuxuu ku jira halkan al-shabaab baa laga dagaalamaya dhul baa la qabtay dhalinyaro joogta dhalinyaradu waxay u baahantay in qorshe loo abuuro halkii qorshe loo abuuri lahaa dhalinyarada in maanta wixii yaraa oo ifayay laga hor istaago runtii nasiib xumay u tahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay wasiirkana inuu ka waantoobo wasiirku 24 hours wuxuu ku jiraa media waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu isleeyahay isma laha runtii taa waxaan dareemi karaa nin dhalinyaro way inaan la taliye lahayn cid la talisa oo runtii magaranaysa waxa wanaagsan u sheegta ma laha wasiirka waxa moodaa inuu dad gaar ah runtii rabo inuu kubadda cagta u xiro taa hore baa loo diiday haddana la yeeli maayo waxaan wasiirka kula talinaynaa annagoo ah maamul goboleedadii wasiir sharciyadda ku soo noqo cid sharciyadda ka weyn ma jirto cid shaati cid ku xukumi karta ma jirto meeshaan waxa weeye xamar annaga waxyaabahan ugu nimi waxa kamid ah in shaati la isku adeegsado nidaamka dawladnimadana maaha mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa hay'adaha ugu sareeya oo wasiirka soo magacaabay inay si dhiibliya u eegaan wasiirkana waxaan leenahay sharciyadda ku soo noqon nin dhalinyaro ah tahay wixii ka khaldamayna way ka khaldameen wasaaraddu waxay u xilsaaran tahay siyaasadda guud ee sports qofka marka siyaasadda guud ay u xilsaaran tahay shuruucaha iyo nidaamyada xeerarka iyo ururada u jira inaan ku xadgudubto annaguna ka yeelimayno dhalinyarada aan xukunno ka yeelimayso hadal dheer iyo cod dheer baan ku leeyahay ka yeelimayno waxaan ku leeyahay sharciyadda ku soo noqo wasiir intaasan kaga baxaya dhalinyarada waxaan u rajaynayaa runtii guul wasiirkana waxaan leeyahay wasiir god Soomaaliya ha ku ridin baan ha ku ridin maanta istaba qabo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay la isku duubnaado guul iyo gobonimo kubadda cagta Soomaaliya horumar bay gaaraysaa meeshan rajiimyo hore laga qabtay rajiimyo kale uma baahna waxay u baahan tahay dad ummadda isku wadi kara dhammaan waxaan u mahadcelinayaa kooxaha kala duwan ee xamar ka dhisan isteedada aan saaxiibada nahay ee u heelan horumarinta sportska waxa meesha u joognaa oo Muqdisho u nimi waxa weeye in horumarinta sportska laga shaqeeyo
cid u xiran ma jirto cid shaati ku xukumi kartana ma jirto waxaan leenahay sharciga ha lagu soo noqdo nidaamka Soomaali u yaala oo ay u dhigatay xeerarka FIFA iyo CAF iyo kan Soomaaliyana ha lagu dabaqo dalka cid marka shaati intay wax kala soo baxdo cid kale ku xukumi karta ma jirto wasiirka kelmadda u dambeysaan leeyahay waxa weeye wasiir inta is dhageysato maalintii xeerarkan la ansixinayay ee aad joogtay iyo maalin kasta waxa tallaabooyinka qaadayso dib iskugu noqo nin dhalinyaro ah tahay waxaan u wadaa inaad sharciga ku soo noqon doonto